waqooyi bari TV waa kulan warbaahineed ay ku qabteen magaalada Buuhoodle isimada cuqaasha culimada iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle waxay baaq u direen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha garsoorku inay wax ka qabtaan dhul uu ku lahaa magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka ka soo horjeedka Baar Xaraf Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Cabdulaahi Burcad oo haatan agoontii ay leeyihiin dhulkaas oo la hayo milkiyadiisa iyo sharciyadiisiiba isla markaana dhulka uu ku haysto siyaasiga Maxamed Cabdi Xaabsade sidoo kale waxgaradkan deegaanka Buuhoodle waxay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha sharciga ugu baaqeen inay arintaasi ay faraha kala baxaan qaar ka mid ah xildhibaano ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo iyagu wakiil dacwo u ah Axmed Cabdi Xaabsade waxaan halka saxaafadda ugu qabanay dhul uu leeyahay Maxamed Xaaji Cabdulaahi marxuumkii Maxamed Xaaji Cabdulaahi Burcad oo ay agoontii caruurtiisa dhaxashay ogaani dhulkaas wuxuu ku yaalaa ka soo horjeedka Baar Xaraf dhulkaas waa dhul ballaaran oo ay agoontii Maxamed Burcad ay leeyihiin mulkiyadiisii iyo sharcigiisina ay haystaan gacantana ay ku hayaan dhulka waxa ku qabsaday in la yiraahdo Xaabsade oo mulkiyada dhulka ku marxaati ahaan ugu qoraa Maxamed Burcad ninka min Xaabsade markuu ku qabsadayna wuxuu wakiil dacwo u qabsaday niman xildhibaan ah oo dhulbaanta laga soo doortay gobolka Buuhoodle gobolka Cayn ee Buuhoodle iyo gobolka Sool xildhibaanadaas waxay yiraahdeen wakiil dacwan ka nahay dhulka Xaabsade leeyahay oo Xaabsade soo wakiishay xildhibaanadaasna waxa la yiraahdaa Cali Axmed Jaamac Jingeli Dubays Shanqarweyn Laawad Bisille iyo gabadh Canab la yiraahdo afarta xildhibaan baa waxay yiraahdeen annaga wakiil dacwan u ah Xaabsade nimankaas xildhibaano weeye waxaan laga soo doortay deegaamada dhulbaanta leeyahay Sool iyo gobolka Buuhoodle Cayn waxaa loo ilmaday inay masayrka ama danta guud ee deegaamadaas ay leeyihiin ay ka hadlaan waxay xaq u leeyihiin u raadiyaan waxay ku khaldan yihiin ka qabtaan may ahayn inay laba reero walaalaahoo ama laba nin saaxiib ahoo in ay u kala heliyaan oo mid yidhaahdaan wakiil dacwaanuna iyagoo gasho shaarkii dawladda federaalka Soomaaliyeed xildhibaano ah ayna ku hanjamayaan lama hadli karo xildhibaanada waxaan leenahay warka waantooba waxaa la idin diray dhul ay leeyihiin ilma Maxamed Burcad oo ku yaala Baar Xaraf hortii ka soo horjeedkiisa taariikh dheer ay iska lahaayeen sida taariikhdu qorayso aabahood uga dhintay agoontaasi dhaxal u lahayd misana lagu qabsaday waa waxba la isku qabsadaaye leeyahay waxa ku haysta in Xaabsade oo garow jooga waxa la yaabaa in Xaabsade la garayo dhulka ama uu yeelan ama ilmo Maxamed baa yeelan waxaa la yaabaa xildhibaanadii dhulbahante ee deegaanka ka soo baxay ee wakiilka ka ahaa inay wakiil dacwo ka yihiin dhulka marka waxaa la oran karaa in Xaabsade ma haystee xildhibaanada haysta baa la oran karaa waxaan ugu baaqanaa dawladda federaalka arrinta ku saabsan waa uga mahadnaqaynaa siday u soo daadihisay dhulka ay isku hayaan ilma Maxamed Cabdulaahi Burcad iyo Axmed Cabdi Maxamuud Xaabsade siday u soo daadihisay waa uga mahadnaqaynaa waxaana ka rajaynaynaa in cadaalad la helo cadaalad ayaa ummadda deeqda waxaanu ka codsanaynaa hadday dawladda sare tahay hadday garsoorka tahay hadday xakamka tahay in cadaalad laga sameeyo cadaalad waa ummadda deeqda oo ay garsoor xaq helaan dhulka ilma Maxamed Cabdulaahi Burcad iyo Axmed Cabdi Xaabsade ay isku hayaan ee Baar Xaraf ka soo jeeda runtii aad iyo aad buu noo dhibayaa in badan baa la ishayay aad baa dawladda muddada ay shaqaynaysay arrintaasi ugu dhex wareegaysay
waxaanu jeclaysannay inaannu baaq ka sii dayno oo nidhaahno dhulkaa ciddii lahayd ha loo xukumo dawladduna cadaalad ha ka samayso. waxaannu dawladda federaalka ka baryaynaa dadku iminka uu qalbigiisu laba jiro maxkamadeeda iyo golaheeda wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo dhammaantood waxaannu leenahay walaalayaalo ilaahay baanu inoo dhexeeya labadaa reer cadaalad ha loo sameeyo. cadaalad baanu baryaynaa in loo cadaalad sameeyo. ciddii wax leehnaa ay wax yeelato, ciddii aan wax lahayna cadaaladda iyo sharciga si fiican dhexdooda loo eego. waxaan ka codsanaynaa dawladda sare oo hogaamiyaha ka yahay ay ka yihiin madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre inay cadaalad kaga qayb qaataan oo dhulka hoos u eegaan, cidna aanay ku hadlayn, in ay cadaalad kaga qayb qaataan baarlamaanku, waayo Soomaali cadaalad dar halka ayaa iyada dhigtay. ugu hanweynay hadda aad baan ugu hanweynay laakiin wixii dhaawacaya cadaaladooda oo duminaya cadaalad darrida weeye in arrintaa hoos loo eego oo qofkii xaq lahaa xaqiisa la siiyo, qofkii xaq darro doonayana la yidhaahdo xaq darrada ku socda laga joojiyo. allahna nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam buu xadiis saxiix ku yiri in allaha la yumli dhalim hatta idha akhadha lam yuflithu ilaa qofka dhaalimka wuu kortaa maalmo qofka hadii wax isugu toosaan oo wuxuu hagaagaan ha ogaado ilaahay baa daba jooge ilaahay daba joogana baxsan maayo.